shirkan jaraa'idanu qabanayno maanta waxaanu ka qabanaynaa arrimo soo kordhay oo haddeer inagu cusub oo baryahan dambe dadku caadaysteen oo dhul badan lagaga hadlaayay marka horta ilaahay baanu u mahadnaqaynaa marka hore alxamdulilaahi rabbil caalamiin mahad ilaahay baa iska leh ilaahay afooyinkan dhacaya iyo xanuunadana ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu naga nabadgeliyo caafimaad baynu ilaahay weydiisanaynaa ilaahay inuu na siiyo ilaahay wixii dhintay ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu naxariisto waxa bukana ilaahay inuu caafiyo ilaahay ka baryaynaa taa inta markan kaga gudbo baryahan dambe waxa ama tiifiyada lagaga hadlaayay ama aan arkay iyadoo dad badan shirar iyo wax la mid ah oo aan ahayn waxa weeye sifo sharciya badankooda ku shaqaynayn waxa la caadaystay baryahan dambe in baaqayo la jeediyo oo la yiraahdo habar jeclo la sheegto gudiyaha habar jeclo la sheegto gudoomiyayaal la sheegto oo shirar lagu baaqo oo la yiraahdo waxa lagu qabanayaa shirar dhulal cayiman oo caynaba oo kale bridhiig oo kale la soo hadal qaado leeyahay shirar habar jeclaa baa lagu qabanayaa waxaanu sheegaynaa aanu uga digaynaa dadka maanta laga bilaabo inaan wax shirahoo lagu qaban karaa aanay jirin shirarka cid baa u xil saaran dhaqanka oo suldaanka guud hogaaminayo salaadiinta iyo boqorrada iyo cuqaasha oo suldaanka guud hogaaminayo iyo guddidii garaadagu baa shirka ku baaqi karta oo qaban karta shir habar jeclo intaasu baa qaban karta reerka shiraya iskii u shiraya waa meeshiisa ka xusbu u shiraya waa meeshiisa kuwaas iyaga u yaaliin cid laakiin shir habar jeclo ku baaqi karto oo oran karto dhulkaas lagu qaban karaa beesha habar jeclo degto ma ay jirto taa waxaanu uga digaynaa cid kasta oo ku shaqaysanaysa ama cid kasta oo istiraado isku day inay waxaas isticmaasho inay been sheegayso aqaalkeedana arki doonto haddii ilaahay ka dhigo haddii ay faraha kala bixi weydo taa waanu uga digaynaa reerku dhaqan buu leeyahay salaadiin iyo cuqaal iyo saan sheegay iyo waxa weeye ayuu leeyahay iyo guddi reeru guddiyaal hoosa reer waliba leeyahay reer aan guddi lahayn ma jiro xagga sarana dee cuqaasha ay dhaqanka iyo salaadiintaas joogta iyo guddida guud baa joogta intaas oo layna oo reer walba u dhisan oo jirto oo beelahan habar jeclo ay leedahay in cid gaar intay isuurursato marba intay meel tagto wax ku hadasho taa shir baanu qabanaynaa iyo halkaas shir lagu qabanayaa iyo shir habar jeclaa jira taa waanu uga digaynaa wixii ka yimaadana qofku isaga qabe ha ogaado maanta waanu sheegaynaa maanta waa sheegitaan waa digniin shirka marka loo baahdo cidaasunba ka hadli karta insha Allah ta'ala shirkan jaraa'id ee aan halkan maanta ku qabanayno sida horeba loo sheegay waa arrin imanka soo korodhay oo u baahan waqtigeeda in la isu tilmaamo halkan waxa joogto aad aragto waa gurigii reerka weeye ama beelaha habar jeclo gurigiisii baa la joogaa guddiduna waa guddidii guud ee garadaga beelaha habar jeclo waxaanu leenahay hadalka annagoo yaraynayna maanta dadka caadaystay inay teetal aanay lahayn ku hadlaan teetal aanay lahaynna ku baaqaan ummadna yidhaahaan waa ku shirinaynaa kaasaanu shirka jaraa'id u qabanno aanu uga digaynaa cid kasta oo teetal sheegata aanay lahayn waxay mudanaysaa ciqaab bay mudanaysaa waxaanu leenahay guddida guud iyo salaadiinta iyo cuqaasha iyo dhaqanka iyo boqorrada intaasaa reer kastaa tusmo iyo talu leeyahy reer kastaa tusmo iyo talu leeyahy looga taliyo tusmo looga taliyo iyo hoggaan taliya ayuu leeyahay inta talisaa waa intaa weeye
inta shir guud ku baaqi kartaa intaa weeye ninka reerkii da isagu wax shirsanaya ee reerkiisa shirinaya wuxuu doonaya ha ka shire dee annagu ka hadli mayno laakiin shir guud oo habar jeclo loo qabto annagunbaa ku dhawaaqi karna iyo mustambeedka madax dhaqameedka waxaanu leenahay ha la iska ilaaliyo cidda iska ilaalin weydaana ciqaab bay mudanaysaa maanta hadhow yay cabanin arrintaa ayay hadhowta ka cabanin waa digniin weeye taatalka iyagii baa la sheegtay shaqadayadii baa la hayaa wax laga samaynayo ma garanayno been baa la sheegayaa ummaddaa la lugoynayaa waar ummadda ha la goynina ninka ay u muuqato waxyaabaha aynaan iminka halkan ka sheegayno hir baa ka sokeeyaan lan hir yaashu hore waa u sheegeen reerku guddi buu leeyahay halkan guddidii garadag baa joogta waxaa soo badanayay maalmahan nin taytal aanu lahayn sheeganaya nin shir aanu qaban karin ku dhawaaqaya nin muxuu ahaayey beela aan waxba ka dhaxaynin midaynaya nin muxuu ahaayey waxyaabo noocaasa oo midhan ka hadlaya waxa weeye maalin dhoweyd shir baa lagu qabtay London leeyahay habar jeceliya habaryonis baa lagu midaynaya maalintii baa lagu qabtay Sheffield habeenkiina waxaa lagu qabtay Burco waana labada beelood ee intaa ballaadhka leeg waa war telefoon sido oo la midaynayaa baa la yidhi maxaa laga midaynayaa isweydiinta waxa le maxaa ay isku hayaan maxaa laga midaynayaa waa laba reeroo walaalaa waa laba reeroo wada degan waa laba reeroo isdhalay waa laba reeroo aan maanta wax dhacdo oo dhib oo dhex taalla aanay jirin waa sheekooyinka yaryar ee daciifka ee siyaasadaysan kuwaana looma baahna dadka waxaa ku hadlayaana cid ay ka mas'uul yihiin waayo ninka mas'uulka ah waxa uu ku hadlaya ama uu ka ballan qaadayo wax uu qaban karaya ama uu taytalkeeda leeyahay waa inay ahaadaan magaca war jeclo sidaa loo sheegay cid bay hawl u egmatay ciddaas uunbaa hawshaa ama shirkaa qaban karta haddii reer uu ku shirayo meel gaari dee dadkuba waa shiraayo waa caadi laakiin magaca guud ee reerka ee beelaha inta ballaadh leegin 10 inan ama 10 maxay ahaatay ninoo aan waxay ka warhayaanba jirin ay reere kale kula shiraan ama muxuu ahaayay shirar kale aanu qabanaynaa ay yidhaahdaan waxba kama jiraan weeye waxaan u sheegayaa hay-adaha amniga ee dawladda kuwa gobolka qaas ahaan shirarka noocaasa ee miidiyaha ku jira ee mar walba la sheegayo ee hawlaha dadka liita ee maanta imikana abaarta ka soo baxay wixii loogaa ku habsadeen maantana aafada kale ku habsatay dadka wax magaratada kharashka kaga urursanaya waxaa loo baahan yahay in 10 kartuun oo aarisa loo soo siyaaba ka fiican oo ka khayr badan dadkooda maranaya ee dhimanaya ha caawiyeen waxa u qabteen ragga shirar kale waxaan ku qabanaynaa meel heble iyo meel heble dhulku uu sii kala xasaasisan yahay nimanka ku dhawaaqay shir baladhiiga waanu qabanaynaa baladhiiga waa magaalo la wada degan yahay oo dawlad kale inala degan tahay imikadana ay rabshada ka jiraan looma baahna dhaqdhaqaaq badan iyo wax dambe kale oo carqalad keena hadda laga soo baxay oo faraa lagala soo baxay in qaboojiyo wixii ka dhacay anigu degmadaan u dhashay odayaasheedan ka mid baan ahay waxa weeyaan guddida guud ee habar jeclana aniga ugu jira waxaan reerku isla qaadan wax garadkiisu iyo cuqaashiisa iyo salaadiintiisa iyo boqoradiisu habar jeclana la qaadan haddii reer daahir iyo allamagan iyo xuseen cabdillaydhaan waa ku shiraynaa dee iyaga u xora laakiin habar jeclo magaca habar jeclo adeerin marka uu halkaa tago wuxuu geystaa aanan u fadhiyaynin ama dhibta ka timaadaa shir baan ku qabanayaa anigoon cidnaba kala tashanin wax suurtagala maaha waxaanu leenahay balaadu daaman la qabtaa weelee daba la qabta ma leh arrintaa shirarka noocaasa ee la qabanayo ee lagu dhawaaqayo ee miidiya ka baxaya gobolkuna ha ka digtoonaado
oo waa in cidda shir qabanaysaa ay ama muxuu hadday tahay habar jecelona ay ka qaadataa guddida iyo salaadiinta ay ogolaanshiye ka jira oo iyagu ay qabanayaan shirka haddii ay cid kaloo urursatay tahayna dee ay ogaadaan oo u diidaan ila iyagaa dawladka dalka waxaan hadalka ku soo ururinayaa reeraha meelaha la leeyahay habar jecelaa degto oo shirar baa lagu qabanayaa war ma oga guddida guud salaadiintu ma oga mustabeedka reerku ma oga waxgaradkiisu ma oga wax la ogol yahay oo aan ogolayna ma aha ciddii gashana waa annagaa iminkaba u sheegayna hay-adaha ku shaqo leh waa inaanay dhicin waa in laga hortagaa waa in meeshii lagu qabtaba wax lagaga qabtaa ama lagu ururinaya shirarka noocaasaba kolley ujeeddadii shirkan jaraa'id odayadu way ka hadleen waxay ku dhan tahay suldaanka guud iyo salaadiinta iyo dhaqanka iyo boqorrada iyo guddida guud ee habar jecelo ayuunbaa qaban karta shir habar jecelo cid kaloo qaban kartaa ma jirto waxaanu u aqoonsanaynaa ninka waxaa ama saxaafad ka sheega ama meel kale ka sheega inuu yahay dembiile baanu u aqoonsanaynaa taasi waa taa shirarkan kan kale haddii eebba xugmaayo siyaasiga ah habar jeclaa la heshiisi haddii eebba xugmaayo iyo habar yoris baa laysu keenaya la midaynaya wax laga midaynayana annagu garan mayno anigu waxaan u haystaa shir siyaasi ah baan u haystaa ninkii reerka wax weydiisanaya beelweynta habar jeclo ninkii wax weydiisanaya xangullaheeda wuu yaqaanaa iyo siduu ugu imaanayo laakiin carruur yar yaroo meelahaa joogta inuu bililiqaysto oo yidhaahdo haddii eebba xugmaayo habar jeclo iyo habar yoris baa la heshiisana ku soo dhuunto waxa loo baahan yahay maaha wax dhaqanana maaha waxaan anigu ku soo gabagabaynayaa guud ahaan wixii shirarahee doorashada markay 4 bilood ka hadho la qabtoba waa shirar siyaasi oo carqalada gabi ahaantooduba maaha shirar beelaha u daneeya maaha waxaan ku soo koobayaa halla ilaaliyo sallallahu alayhi wasallam shirkayga jaraa'id sida odayaasha hore uga hadleen wuxuu daaran yahay arrinka laga soo hadlay ee ah arrinka cusub ee imika soo kordhay ee dad badani wixii aanay lahayn ama maskab aan cidina u dooran ay dhakada ku qaateen waxaanu uga digaynaa oo aanu cid kasta oo ku kacda uga digaynaa in aan ay mari doonto ciqaabteeda cidda ku kacda dabad iyo gudo ama qolqol joog ha ahaada ama qurba joog ha ahaadee cidda ku baaqda shir beelweynta habar jeclaa waxaanu uga digaynaa inay mari doonto ciqaabteeda hay-adaha amnigana waxaanu ogeysiinaynaa oo aanu cod dheer ku ogeysiinaynaa una keeni doonaa waraaqo rasmiya in wax laga qabto oo arrinkaa wax laga qabto shirka waxa qaban kara oo qura salaadiinta boqorrada cuqaasha oo uu hogaaminayo suldaanka guud ayaa qaban kara iyo guddida guud oo uu hogaaminayo guddoomiyaha guddida guud iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddida kale cid kale oo qaban karta shir ma jirto cid kale oo ku baaqi karta ma jirto waanu uga digaynaa waxaanu leenahay shirkaas cidda wadda ee ku baaqaysa waxa mari doontaan ciqaabteeda ayaan leenahay waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa waxa aanu idinka digaynaa oo mar labaad ku celcelinaynaa in aanay dadka teetalka aanay lahayn sheeganaya iyo shirarka aanay qaban karin shirko ninku reerahooda waa qabsan karaan reeraha laftooda reer waliba wuxuu leeyahay cuqaal buu leeyahay guddiyuu leeyahay hoose dadka majara habaabinaya dadka ee imika siyaasadda loo soo fuulayo ee la leeyahay shir qabta iyo shir beeleed qabta maanta Somaliland uma baahna annaguna aad iyo aad baan uga digaynaa cawaaqibkoodana way mari doonaan halkan waxaan kaga faa'iideysanayaa wax mawduuc ayaga ka baxsan ilaahay subxaanahu wa tacaala aafo uu keenay oo ah shubanka
waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasiirka caafimaadka Salebaan Ciise Xagle Toosiye oo aanu ilaa maalintii shubanku bilaabmay mar qura bari dhigin oo ka shaqaynayay ayaan aad iyo aad guddi ahaan aanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa iyo gobol ahaanba hadday jiraan xagtimo ka soo gaadhay ninku markuu shaqaynayo kolley xagtimaha soo gaadha hadday jiraan gobolka xagtimo ka soo gaadhay Salebaan waxaanu leenahay ninku markuu shaqaynayo wax walba waa lagu odhanayaa waa dadkaagii waa dadkii aad u shaqaynaysay waa lagu ogyahay ninka hawlkarkaay ama dadka caqliga leh way ku ogyihiin inaad shaqaynayso inaanad mar qura istaagin ilaa maalintu buuhoodla ka bilaabmay ilaa maanta Salebaan waxaanu leenahay haddii xagtimo kaa soo gaadheen xaal iyo boolojis baanu kaa siinaynaa sidaa aad u shaqaynayso haddaanu nahay guddida guud ee habar jeclo sidaa aad u shaqaynayso u shaqee gobol Soomaalidu waxay ku maamaadaan in subax heesa nin waxaan loo ambaqaadin ama aan xil loo saarin iska qabsada oo yiraahdo beelaan ururinaya waxaan u aragnaa un fidma iyo takhriib baan u aragnaa waxaan uga digaynaa boqol jeer uga digaynaa yar iyo weynba qurba joog iyo dhulkan wixii joogaba war waxaydan shaqo ku lahayn oo aan la idin igman ninowna faraha hala gelin habar yoonis iyo habar jecel wax dhibaato kama dhaxeeyaan ilaa iyo maalintii ilaahay abuuray meel wada deganaan waxaan leeyahay hadalku wuxuu ku soo urursan yahay waxa shir habar jecel qaban kara suldaanka guud iyo salaadiinta iyo cuqaasha iyo guddida guud ee habar jecel ay leedahay tii garadaka ninkii wax kale isku dayow wixii halka ka soo baxay shaqadeeda